Alfanaan Dayax Nuurshe ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa uu sheegay inuu cafis iyo musaamax siiyey qaar ka mid ah dadka siyaabaha kala duwan ay isugu khilaafeen baraha bulshada haba ugu badnaatee kuwa gafafka badan u geysanaya buu yidhi. Dayax Nuurshe ayaa qoraal u soo dhigay Facebook goordhaweyd waxa uu yidhi qof kasta oo qalad iga galay alla dartiis ayaan u cafiyey iyo fadliga bisha Ramadaan, laakiin iga joojiya buu yidhi inaad 11 bil dulmi igu caysaan bisha Ramadaanna inaad calaacal iyo cafi igu waashaan afta ciidna sidiina aad kusoo noqotaan oo ula jeedo in ramadaanta ka hor dadku ay siyaabo kala duwan buu yidhi u dhaliili jireen isaga siba midabkiisa oo marba marka ka dambeysa uu fadeexo iyo sidoo kale dhaleeceen ugala kulmayay qaar ka mid a dadka baraha bulshada sidii joogtada u isticmaalo. Fanaanka waxa uu sheegay in siyaabo qaldan loo adeegsan inta badan loo adeegsado sawiradiisa social media markaad eegto baraha dadweynaha ay aadka ugu xidhan yihiin Twitter-ka, TikTok-ga iyo sidoo kale Facebook-ga. Waxaana uu sheegay in fanaaniinta kale uu uga duwan yahay ay tahay in dadka had iyo goor ay isaga meel cidlo ah ku aflagaadeeyaan kuna caayaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in qoyskiisa ay meel uga dhici jireen. Dhammaanba dadkaasi ayuu sheegayaa in bisha Ramadaan awgeed inuu cafinayo, laakiin waxa uu digniin siiyay qaar ka mid a dadka caadaystay in ay isaga u gagafaan kuwa uu sheegay in 11 bilood waa waxa uu la jeedaa Ramadaanta oo sanadkiiba hal bil ina soo marto uu leeyahay. Ramadaanta marka ay soo dhawaato amaba bartanka aynu ugu jirno ay dadku caadaysteen in ay cafis i weydiistaan buu leeyahay. Dadkaasi ma doonayo inaan cafiyo, laakiinse imika waan cafinayaa buu leeyahay. Qof alla qofkii qalad iga galay alla dartiis ayaan ku cafinayay fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan. Fanaanka waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay dadka farakutiriska ee sida aadka baraha bulshada saameynta ugu yeesho siiba saameynta ku leh, waxaana muddooyinka ugu dambeeyay isaga iyo sidoo kale fanaaniin dhowr ah lagu dhaliilaya in midabkoodii ay bedeleen. Isaga iyo si gaara waxa uu dhibana u noqday dadka baraha bulshada aadka u isticmaalo kuwaasi oo u gafayay isaga iyo qoyskiisa. Arrimaha ugu weyn ee isaga lagu beegsanayay waxa weeye oo uu sheegay in ay dadku ku bartilmaameysadaan midabkiisa iyo arrimo kale. Waxa marar badan uu sheegay in uu dhaleeceyn kala kulmayo dadka baraha bulshada sida joogtada u isticmaasho. Haddaba Dayax Nuurshe kaliya ma ahan, Cabdi Daanto ayaa ka mid ah dadka sida aadka ee baraha bulshada loogu dhaliilo. Laakiin bisha barakeysan awgeed iyo qofka oo doonaya in xasanaad badan iyo alla agtiisa inuu ugu dhawaado ajir iyo sidoo kale dadaalka bisha barakeysan ee Ramadaan qofka muslimka ee laga doonaya inuu juhdi ku bixiyo dambi dhaafna la weydiisto sidoo kalena Rabbi subxaanahu wa tacaala toobadiisa uu ka aqbalo. waxaa ka mid ah in qofka uu laabta u xaaro qof alaala qofka ay wax kala dhexeeyeen ama ay kala tabanayeen. Dayax Nuurshe waxa uu muujiyey dareenka ah in uu ay tahay lama huraan inuu cafiyo dadkii ku xadgudbay iyo kuwa isaga weli aad u hadalay. Waxa uu leeyahay dad badan ayaa dhambaale ii soo diraya, qaarkood waxay leeyihiin in cafi bisha barakeysan awgeed. Waxaan idinka codsanayaa buu yiri Ramadaanta marka laga baxo xitaa inaad halkiina aynan kasii wadin caydii aflagaadadii aad la bartilmaameysan jirteen. Waxaan doonayaa in aad halkaasi oga hartaan. Haddaba dembiga ugu weyn dadku ay ka galayaan waxaa ka mid ah in sawiradii hore Dayax Nuurshe iyo sawirada imika in isbarbardhig lagu sameeyo, sidoo kalena midabkiisa lagu maadeysto. Waxaana Dayax Nuurshe uu sheegayaa in qofka cafiska badan uu ka naxariis badan yahay dadka kale uuna ka karaamo badan yahay sida uu isaga hadalka u dhigay. Haddaba Dayax Nuurshe dad badan oo baraha bulshada aadka u adeegsada iyo waxa ay tilmaameen in dayixii hore iyo kan maanta isbarbardhig ay ku sameeyaan, siiba dadka oo u muuqdo sida ay uga xun yihiin uga careysan yihiin. Dayax Nuurshe isbedelka uu noloshiisa ku timid, siiba isbedelka isaga wejigiisa ku yimid iyo qaybo ka mid ah aadamaha jirkiisa, waana waxa ugu badan ee dadku ay baraha bulshada si aad ay iskula dhexmaraan. Kulley dadka ayaa inta badan shalay iyo maanta sawiro qoraallo noocaas oo kale ah oo aflagaada ah qaarkood uu Dayax Nuurshe aad u qoonsaday aad ugu soo bandhigaya baraha bulshada. Haddaba Dayax Nuurshe waxaa lagu taliyaa dadka aadka u qalbiga nadiifka ah, qalbiga wanaagsan, dunidana ay ku yaryihiin qof maalin kasta la aflagaadeynaya mise iska cafiya kuwa aflagaadeynaya alla ajir iyo dambi dhaafna ay ka raadsanaya. Runtii waa qof qalbi wanaagsan, inkastoo ay jiraan dad had iyo jeer doonaya in isaga ay si gaara u dhaliilaan. Haddaba dadkaasi marar badan waxa uu sheeganayay bilaa camal dadku in ay shaqo ka dhigteen isaga mar walba
waa in ay nabad markaasi u muujiyaan oo laga nabad helo. Haddaba in lagu caayo ama lagu aflagaadeeyo waa qalad, waayo caydu waa xaaraan. Inaguna dad islaam baynu nahay, ramadaan ayaynu ku guda jirnaa, waana dhaqamada aanu wanaagsaneyn ee u baahan in qofka uu ka digtoonaado. Haddaba dayaxdan rusho waa ruux qalbi wanaagsan oo ay soomaalidu inta badan ogyihiin afgaabnida iyo xushmada ilaahay siiyey iyo karaamada uu alle ku manaystay, iyo sidoo kale ixtiraamka iyo xushmada uu hayo qof waliba oo soomaaliyeed oo taageeradiisa kamid ah. Fanaankan ayaa saacadii ugu dambeeyay social media kusoo qoriyay qoraaladaasi, isla mar ahaantana dadweynaha ka dalbanayay in ay cafiyaan, isla mar ahaantana dhammaantoodba uu isagu cafiyey. Sidoo kalena uu sheegayo in wixii hore usoo maray in gebi ahaanba uu iska masaxayo, maadaama bil ramadaan ay tahay. alle subxaana watacaalana uu doonayo inuu ugu dhawaado ajirkaasi uu doonayo isaga imika inuu ka helo. dayaxdan rushe iyo qoyskiisa waxaa muddooyinka ugu dambeeya dhibana ay u noqdeen dadka sidii joogtada baraha bulshada u isticmaalo, kuwaasi oo si guud uga hadli jiray habnoololeedka dayaxdan rushe, habdhaqankiisa siiba fankiisa iyo arrimo kala duwan oo noloshiisa gaarka ka mid ah.